bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta walaal qodobada gudaha iyo caalamkaba ugu doorka roonna waxaa qayb ka ahaan idin hayno taliyaha sirdoonka Eritrea oo safar qarsoodi ah ku yimid Muqdisho iyo ujeedkiisa xog ayaan idinkaga haynaa oo ku daawan doontaan warkeena beesha caalamka oo shir isugu keenaysa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo xurguf siyaasadeed qaarkood ay kala dhaxayso siyaasadda madaxweyne Farmaajo xilli uu madaxweyne Farmaajo uu ku fashilmay dalkan in uu u hogaamiyo doorasho lagu wada qanacsan yahay Africom oo xaqiijisay in ay dhamaystirtay bixitaankii ciidamada Mareykanka ee joogay Soomaaliya haddaba saameyn noocee ayay ku yeelan kartaa bixitaanka ciidamada Mareykanka ee ka baxeen Soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab oo dhowr weerar ka geysta qaar ka mid ah maamul goboleedyada xilli ay dhawaan saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya qarax ku dhigeen wadda ay marayeen galmudug oo ku dhawaaqday dagaal ka dhana dagaalyahanada al-shabaab waa kuma Danjiraha Ruushka ee geeriyooday kana soo shaqeeyay gudaha Soomaaliya haddaba faahfaahin ayaan idinkaga haynaa iyo macluumaad ku saabsan taariikhdiisa iyo meelaha uu ka soo kala shaqeeyay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug oo loo soo jeediyay in uu iscasilo haddaba qorqor ma aqbali doonaa dalabkaasi iscasilaada ee loo soo jeediyay madaxweynaha dooran ee waddankaasi Mareykanka Joe Biden oo saxiixaya go'aano qaarkood saameynaya Soomaalida ku dhaqan halkaasi haddaba maxuu saxiixaya maxaase saameynta u keenaya Soomaalida ku dhaqan waddankaasi Mareykanka warkeena ayaad ku daawan doontaan ee ku soo dhawaada warkaas oo intaas ka faahfaahsan fadlan intaana guda gelin marka hore subscribe channelka saar siina share gareesi waxyaabaha halkan soo gelina ay ku soo gaaraan adna waad ku mahadsantahay la socodka iyo rukumashada warkeena aan ku bilownay sida xogo hoose aan ku helay ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho uu soo gaaray taliyaha ciidanka militariga Itoobiya qaybta Oromada General Adam Maxamed iyo taliyaha ciidanka sirdoonka Eritrea labada diyaaradood oo ka kala yimid dalalka Itoobiya iyo Eritrea ayaa waxay xalay maqribkii ka soo degeen garoonka diyaaradaha dancadda ee magaalada Muqdisho labada taliye oo ku sugnaa xarunta taliska Anise ee Habarqadiijo ayaa halkaasi kulan kula yeeshay taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir xogaha ay heshay walwal ayaa intaasi waxay ku darayaan in sababaha keenay imaanshaha saraakiishan ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamo Soomaali ah ay ku dhinteen dagaalkii Itoobiya ka dhacay ee u dhaxeeyay dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa Tigreega Itoobiya iyo Eritrea ayaa sida xogaha aan ku helay waxay sheegayaan in ay ka garaabayaan sababta ciidamada dawladda Soomaaliya tababarka loogu qaaday dagaal loo geliyay iyo waxa ujeedku uu ahaa in ay ciidamadaasi ay dagaal galaan maalmihii ugu dambeeyay waxa soo xoogeysanayay wararka sheegaya in ciidamo Soomaaliya oo tababar loogu qaaday dalkaasi Eritrea lagu dilay dagaalkii ka dhacay Itoobiya u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Itoobiya iyo kuwa Tigreega dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wali aan ka hadlin wararkaasi lama hubo wax ka runa iyo been ah marka laga reebo wararka la isla dhexmaraya ee ah in ciidamadaasi ay ka qayb qaateen dagaalka ka dhacay dalkaasi Itoobiya balse ila xogogaal lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ee loo qaaday tababarka ay dagaalkaasi ka qayb qaateen taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabadgudda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdikariin Guuleed ayaa waxa uu sheegay in arintaasi ay dhabtahay isla markaana ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan oo tababar loogu qaaday dalkaasi Eritrea ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay Itoobiya u dhaxeeyay dawladda federaalka Itoobiya iyo hogaamiyaasha Tigreega waxaana uu sheegay in uu la hadlay saraakiil ka tirsan Itoobiya kuwaasoo u sheegay in ay qayb ka ahaayeen ciidamo Soomaaliya dagaalkaasi si kastaba ati hooyooyin badan ayaa waxay ka walaacsan yihiin wiilashoodii kadib markii ay jaan iyo cirib meesha ay dhigeen ay warkoodii waayeen ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya kama aysan hadlin arintaasi ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegay in xubnaha beesha caalamka ay wadaan dadaal ku aadan sidii shir ay isugu imaan lahaayeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada si loo dhameeyo ismarwaaga ka taagan doorashada iyo in uusan dalka ka dhicin firaaqa dastuuri ah wararka ayaa sheegay in maalmaha soo aadan ay kulan isugu imaan doonaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada iyadoona ay garwadeen ka tahay beesha caalamka waxa wali taagan ismarwaaga la xiriira hanaanka doorashada Soomaaliya xilli waqtiguna aad u soo dhawaanayo laakiin garabyada mucaaradka ayaa u arka beesha caalamka
in ay tahay rajada keliya ee xal lagu heli karo. laba ka mid a shanta maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalk Soomaaliya, Jubbaland iyo Puntland ayaan ka dhex muuqanin hanaanka doorashada, inkastoo saddexda maamul goboleed ee kale ee Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ay xukuumadda federaalk Soomaaliya ay la safan yihiin. xisbiyada mucaaradka ayaa waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa ka mid a qaabka doorashada loo fulinayo deegaanada iyo weliba xubnaha ka tirsan guddiga doorashada oo ay u arkaan in aysan cadaalad siman ka samayn karin arrimaha doorashooyinka maadaama ay ku jiraan xubno ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya. 8 Febraayo ayuu qorshuhu ahaa in ay Soomaaliya ka dhacdo doorashada madaxweynaha, balse lama oga sida ay u hirgeli doonto iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin. beesha caalamkuna ay ku talinayso in xal degdeg ah laga helo doorashada Soomaaliya ee xilligani fooda nagu soo haysa. muddo kooban ayaa ka harsan doorashada madaxweynaha Soomaaliya, welina dalku dhaqdhaqaaq doorasho ma gelin ee ismarawaagi ayaa weli xoog u taagan. wasiirkii hore ee qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Galmudug, Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, ayaa ugu baaqay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor in uu iscasilo. Cabdikaafi ayaa sheegay in muddadii uu xilka hayay Qoorqoor ay Galmudug samaysay dib u dhac aad u weyn, taasi oo ugu weyn tahay in siyaasadihii madaxweynaha ay fashilmeen sida uu hadalka u dhigay. dagaalo qabiil ayaa deegaanka ka abuurmay markii uu Qoorqoor yimid. Xananbuuro, Gurceel, Matabaan iyo deegaano kale oo nabdoona ayaa hadda wada colaad ah, ayuu yiri Cabdikaafi. ma dhicin in Galmudug reeraha degan ay gaaraan heerkan in waxgarad la laayo, ayuu yiri isaga oo tix raacayay dilal aanooyin ku dhisan oo deegaanadaasi Galmudug ka bilowday. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in deeqihii caalamiga ahaa intii uu joogay Qoorqoor aan waxba loogu qaban dadka degan Galmudug, sidaas daraaddeedna xalka Galmudug uu ku jiro inuu iscasilo madaxweynaha maamulkaasi xilligan talada haya ee Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. wasiirkii hore ayaa intaasi ku daray in Qoorqoor uu shaqaale u noqday filla Soomaaliya, uuna iska hilmaamay shaqadii reer Galmudug ay u dhiibteen. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa hadda waxa uu dhexdhexaadin ugu jira madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka xilli deegaanada maamulkaasi ay ka dhacayaan dagaalo ku salaysan aanooyin qabiil. sidoo kalena dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa meelo muhiima ka qabsaday ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo iskarabsanaya. xaaladda Galmudug ayaa ah xilligani mid cirka ku shareeran, iyadoona xaaladaasi ay tahay mid alla u sahla. dhinaca kale, Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga ee maamulka Galmudug iyo mas'uuliyiinta kale ee booqday furimaha hore ee deegaanka Bacaadweyne, ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu qayb ka yahay dagaalka dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab. wasiirka amniga ee Galmudug oo kaashanaya dadka shacabka ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada ay ka joogaan gobolka Mudug. sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu u mahad celiyay shacabka gobolka Mudug oo uu sheegay in ay u dhabar adeegeen in ay iska difaacaan dhagarta Al-Shabaab oo uu sheegay in ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan dadka deegaanka. wasiirka oo sii hadlayay ayaa ku dhawaaqay in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaaban doono maalmaha soo socda. wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay abaabul dagaal ka wada deegaanada ka tirsan gobolka Mudug, kuwaasi oo hore uga dhacay dagaal u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab oo hadda halkaasi u soo ruqaansaday. taliyaha militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika Africom ayaa xaqiijiyay in la dhameystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee joogay Soomaaliya. afayeenka Africom gaashaanle sare Christophe ayaa u sheegay VOA in hawshaasi la dhameystiray 2 maalmood ka hor waqtigii kama dambeys ee uu u qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in ciidankiisa laga saaro Soomaaliya oo ku beegnayd 15 Janaayo aynu ka soo gudubnay. Stephen ayaa waxa uu sheegay in tiro aad u kooban oo ciidamada Mareykanka ay ku hareen Soomaaliya. waxa uu sidoo kale sheegay in sababo dhinaca hawlgallada socda darteed aysan xilligan sheegin wadamada la geeyay ciidamada laga qaaday Soomaaliya. waxa uu sheegay gaashaanle sare Cornis in haatan howlgalku galay wejiga xiga oo ah in ay wada shaqayn la sameeyaan ciidamada Soomaaliya. waxa uu sidoo kale ku goodiyay in Mareykanku uu sii wadi doonaan cadaadinta ka dhanka ururka Al-Shabaab. tirada ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegaa in ay u dhaxayso 65,800 kuwaasi oo Soomaaliya u joogay in ay tababaraan isla markaana caawiyaan ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab. madaxweyne Trump ayaa dalbaday in
ciidanka Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya horaantii bishii December aynu soo dhaafnay. Saraakiisha Soomaalida ayaa muujiyay in ay go'aankaasi saluugsan yihiin. Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa shaaciyay geerida Danjire Sergi oo shaqada diblomaasiyadda ku howlana muddo dheer sida ku cadda sooyaalkiisa isla markaana ka soo shaqeeyay dalal kala duwan. Waxa uu hadda ahaa Danjiraha Ruushka ee isutaga Imaaraadka Carabta, waxaana geeridiisa si dhab ah u xaqiijiyay madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Khalifa bin Sayid oo dhammaan tacsi gaarsiiyay madaxweynaha dalkaasi Putin. Danjirahaasi ayaa waxa uu shaqada safaaradda Ruushka ee Imaaraadka Carabta qabtay 4 bishii Abriil ee sanadkii 2019 kadib markii madaxweyne Putin uu arkay in uu yahay shakhsi dardargelin kara howlaha shaqo ee laga doonayo safaaradda UAE-da. Waxa uu dhashay sanadkii 1953 waxaana uu ku soo cilmi bartay magaalada Moscow oo ah xarunta Ruushka, isaga oo qayb ka ahaa rag iyo dumar loo carbiyay in ay ka shaqeeyaan howlaha dhanka diblomaasiyadda oo kaalin firfircoon la soo baxeen. Manhajka barashada xiriirka caalamiga ah ee Moscow ayuu ka baxay 1976. Shaqooyinka dhanka safaaradda waxa uu bilaabay 1985. Soomaaliya iyo Djibouti ayuu dalkiisa u qaabilsanaa sagaashameeyadii ee safaaradda Ruushka. Qunsulka guud ee safaaradda Ruushka ee Jidda boqortooyada Sacuudiga ayuu soo noqday ka hor inta uusan si rasmi ah u noqon danjiraha dalkiisa ku metelaya dalalka Soomaaliya iyo Djibouti sida ku cad sooyaalkiisa. Inta badan 30 sano oo shaqo ah oo diblomaasiyadeed, aqoon kororsi, aqoon dheeraad iyo waayo aragnimo ayuu ahaa. Safiirkaasi waxaa laga garanayay bariga Afrika, wadamada Afrika, bariga dhexe iyo kuwa Carabta oo waqti badan ku qaatay marka loo eego xirfadiisa iyo shaqooyinka uu ka soo qabtay. Sidaasi waxaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Imaaraadka. Waxaa loo badinayaa in uu danjirahaasi uu sababsaday xanuunka COVID-19 ee galaaftay nolosha dad gaaraya 2 milyan oo ruux guud ahaan caalamka oo dhan, waxaana Imaaraadka uu ka mid yahay dalalka laga helay kiisaska ugu badan ee coronavirus. Madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Mareykanka ee lagu magacaabo Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu saxeexo maalmahan ugu soo aadan marka xilka loo caleemo saaro Arbacada soo socota sharciyo dhowra, sida uu sheegay nin uu u xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cad. Biden ayaa amarada madaxweyne ee uu saxeexi doono Arbacada in intooda badani noqon doonaan kuwa uu burburinayo ama uu hore u saxeexay madaxweyne Donald Trump. Kuwa ugu horeeya uguna waaweyn waxaa ka mid ah laalista xayiraadda socdaalka ee uu Trump saaray dalal dhowr ah oo intooda badani muslim ah oo Soomaaliya ay ku jirto. Xayiraadaasi socdaalka ayaa waxa ay saameysay Soomaali badan oo ku jira xeriyooyinka qaxoontiga oo ku hanweynaa in loo qaado dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sidoo kale u diiday Soomaalida Mareykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno eheladooda sida xaasaska iyo caruurta. Waxaa sidoo kale dikratooyinka oo lagu amrayo in dib uga laabashada heshiiska cimilada ee Paris iyo in uu waajib ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhammaan xarumaha dowladda federaalka. Biden iyo ku-xigeenkiisa haweenada la yiraahdo Kamala Harris ayaa la wareegi doonta xafiiska aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka 20 bishan oo ku beegan Arbacada soo socota. Madaxweyne Trump ayaanan ka qaybgeli doonin xalfadda caleemasaarka madaxweynaha, isaga bedeli doona. Guud ahaan warkii daawadayaal kala socoteen warbaahinta walwal xilligan waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe intaynu war noocan oo kale aynu dib u kulmi doono. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelkeena subscribe saar. nabadgelyo.